shacabka godadega ee go'aha damin waayey ee diyaaradaha lagu garaaco goor iyo ayaanba gurmad iyo waxay naga sugahayaan gacan walaaleede waryaan lagu gafin rooblow godobi waa wiishe doorashada ka gees iyo ka gees uunka wada gaadhay ee goobtii loo abseeyaba haddeer gabagabaynayso garbahaadhay inay ka hartaa waa gunnimo weyne waryaan lagu gafin rooblow godobi waa wiishe haddii aan u soo noqdo su-aashaadii wax iga weydiiseen ee doorashada garbahaare iyo gobolka gado horta waxaan kuu sheegayaa maamulkan maantay dalka ka jira oo hogaaminayey maxamed cabdulaahi farmaajo maamulkaas wuxuu madaxweynuhu xilka qabtay doorashada garbahaarey waxaan leeyahay garbahaarey iyo kismaayo oo isdiidan oo maamulka axmed madoobe iyo garbahaarey oo isdiidan iyo gobolka gado ayuu xilka qabtay xasan sheekh oo ka horreeyana waa isdiidanayeen ra-iisul wasaarahan maantay doorashada dalka mas-uulka ka ah maxamed xuseen rooble ilaahay raalliha ka ahaadee wuxuu xilka qabtay ayada oo gada iyo kismayaaya isdiidan yihiin sidaas ayadoo ay tahay wixii heshiis la soo maray iyo wixii dhib laga soo maray iyo wixii wadahadal laga soo maray ilaa dhuusamareeb ilaa xamar 17 Setembar golihii wasiirada arrimo gudaheed ee maamul goboleedyada ka dambeeyey ee baydhabo ku shiray shirkii ay tageen garbahaarey tageen wixii oo dhan waanu ogna ra-iisul wasaaraha sharafta leh waa kii tegey oo asagu inta tegey garbahaarey la soo shiray oo maaragtay si fiican ay u wada hadleen shacabkii reer garbahaarey iyo ra-iisul wasaaruhu waa duuban tahay khudbadahiisii kuwii maaragtay shacabka salaadiinta iyo siyaasiyiintaba saa darteed maanta in la yidhaahdo 11 goob doorasho oo Soomaali maanta doorashadu ka dhacaysay intii kale inta laga qabto in la yidhaahdo garbahaarey ha ka harto waxay sharaf dhac iyo mas-uuliyad darro iyo sumcad xumo ku tahay ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed marka waxaan ogahay waxaan arkayay meesha la Boosaaso oo 16 kursi maalin qura lagu doortay 4 saacadood gudahood baa lagu doortay hal ergaa dooratay gacantay u wada taageen wax buuq iyo wax qayla kama dhicin taariikhda adduunka meel ay soo martayna ma jirto meel walbana saasoo kale tan dhibku uga jira saasoo ay tahay haddana in la yiraahdo garbahaarey ha laga reebo doorashada oo ha laga reebo wadanka ama ha laga wareejiyo waxay sumcad xumo iyo sharaf darro ku tahay ra-iisul wasaaraha sharafta leh ee qaranka Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka mudane ra-iisul wasaare doorashadan 2022 magaceeda waxaa la yiraahdaa doorashadii rooble markii adaa mas-uul ka ah adiga hogaamiye ka ah hadday wanaag la timaado oo wanaag ka ansaxo magaceeda iyo sharafteeda adaa iskale haddii xumaani ka timaadana xumaanteeda adaa yeelanaya sidaa darteed waxaan leeyahay oon kuugu nasteexaynaya anoo odaygaagiya anoo ehelkaa ah anoo aad garanayso doorashadaas adoon u hiilinayn farmaajo oon u hiilinayn axmed madoobe oon siyaasi u hiilinayn doorashada garbahaarey ka qabo sida ugu dhaqsaha badan uga qabo guddiga heer federaal u dir axmed madoobena guddigii soo dirdhe doorashadii saas ku qabo waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa mudane ra-iisul wasaare aad ii dhegayso waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaalidu waxay ku maamaadaa godob ruuxii laga galay gocoshada ma daayo kii galayna maba oga gashigu amaahday waxaan ku leeyahay wiil baa gabar u heesay wuxuu yidhi walaalay in cadow kugu wiirsaday war iyo ceeb kulama rabo wanaagaagaan jecla sidaa darteed anigu wanaagaagaan jecla in sumcadaadu wax nabar naaqusta ma toorayo waxaan hadalkayga marka kuugu soo gabagabeynayaa shacabka godadega ee go'aha damin waayey ee diyaaradaha lagu garaaco goor iyo ayaanba gurmad iyo waxay naga sugahayaan gacan walaaleede waryaan lagu gafin rooblow godobi waa wiishe doorashada ka gees iyo ka gees uunka wada gaadhay ee goobtii loo abseeyaba haddeer gabagabaynayso garbahaadhay inay ka hartaa waa gunnimo weyne waryaan lagu gafin rooblow godobi waa wiishe intaasaan hadalkayga kugu soo gabagabaynayaa ilaahayna ha ku garansiiyo sumcadaadana kor allaha ka dhigo wargado ha loo gurmado intaasaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye adeer 10 sano ayuu xilka hayay 10 sano maanta muuna imaanin
meelaha kaleeto meel walba madaxweyne maamul goboleedkoodu shacabkiisa isagaa la heshiiyey daba heshiisiin u sameeyey isagaa la hadlay isagaa waxay tabinaya ka biye asagu 10 sano oo uu xilka hayo dadka reer Garbahareyna uma tegin lamana heshiin daba heshiisiinna ma samay dowladii Xasan Sheekh baarlamaanka federaalka oo diiday oo yiri ma aqoonsanayna Xasan ba aqoonsado yiri anaa ku aqoonsaday doorashadii ka dambeysay oo asagu isku cabiray oo 3 nin ii keen mid aan ka doortay oo yirina waxa diiday dowladda federaalka diiday oo baarlamaankii baa diiday oo golihii wasiirada diiday haddana madaxweynaha hadda jooga 2 sano u aqoonsaday ku meel gaara labadii sanana mar hore dhamaatay ma garat marka haduuna waligiiba la heshiin 10 sanana uu xilka hayo seebu ku taga seeb macnuhu ku tagaya waa maxay waxa ka fiican in doorashadiina la qabto oo doorashadii ma soo dhameystiro dowladdan dhalan doontana ay dib u heshiisiin samayso oo asaga maamulkiisa iyo Garbaharey ilaa waa isma hurto inta la heshiisiyo maamul fiican loo sameeyo taas ay arrintu ku dhamaan kartaa adeer ma garat marka waxaan leeyahay rooblow adeerow subcadaada hagaaji abtiyow subcadaada hagaaji wanaagaaga hagaaji Garbaharey cidna ha kala tashan doorashadii ka qabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh